kusoo dhaweynaa walaalkay maxamed kusoo dhawow caska cali janal aada ugu mahadsan tahay maadaama waqtiga qaaliga aan siisay kusoo dhawow maxamed waa dhawahay caska soo dhawow adiguna maxamed maanta waxaan kaa wareysay rabnay gobolka yaable boori gaar ahaan caasimadiisa yaable Soomaali badan runtii ku nool waxaan kaa wareysan lahay Soomaalida ku nool waxa uu hirgalay iyo waxaana uu hirgalay marka hadaan ku kool marno xagga waxbarashada bismillah horta Soomaali badan baa degan magaalada Yaafle waana caasimadda gobolka Yaafle boori waa magaalada ugu tirada badan dadka ugu tirada badan ay degan yihiin uguna baaxadda weyn 100,000 iyo ka badan oo dad ayaa degan magaalada Yaafle 100 iyo ka badan kaas ay Soomaaliduna ka mid tahay tiro yar oo dadka soo galootiga ee magaaladan degan ah dabcan waxbarashada dadkii dhalinyarnimo ahaan ku yimid dad guuleystay oo maanta jaamacad ka soo baxay magaaladan ka shaqeeya waa jiraan dabcan dad maanta processka ku jiro oo wax baranaya dadaalayana waa jiraan dad sida noloshu ka kooban tahay noloshii waxbarasho inta ay lumiyeen nolol kala galayna waa jiraan marka guulo waa la hayaa waxbarasho oo hayena badnaaninba laakiin dad guuleystay waa la hayaa dad aan guuleysanna waa la hayaa oo kulay sababo kale iyo waxyaabo kale ay u diideen waxbarashadiina si wadaan waa maasan tahay waxbarashada xagga ku dhaafno waxaan kaloo ku weydiin lahay maadaama xog ogaal u tahay jaaliyada Soomaalidana madax u tahay waxaan ku weydiinaa gaar ahaan xagga ganacsiga maadaama Soomaali badan inta ay degan tahay bismillah horta xagga ganacsiga dabcan dhaqdhaqaaqa Soomaalida ee ganacsiga meel ay joogto oo Soomaali ayna ganacsi ka bilaabin waxa umaleynaa nal badan dansan marka nalkaas waa noo shidan yahay tiraba 3 meheradood oo waaweyn bay Soomaalidu ku leedahay dukaano sida dadku u yaqaanaan dukaanadaasi qaar hadeer dhisan 15 sano iyo qaar dhisan 10 sano iyo qaar hadeer cusub way leeyihiin dabcan dad muslimiin oo nahay waliba oo marka ay dukaanadu aynu nidhaano dukaankaasi wuxuu isku wataa bagaashkiisi hilibkiisi wixii soo dhamarkay Afrika oo kala joognay dukaan baa hilib laga gataa meenaan aqbalayn laakiin hadeer halkan dukaanada hilibkiina waa la gadaa marka waa dukaano casriya la quality oo challenge gareynaya dukaanada wadankan ka furan aad bana ganacsigu ay ugu guuleysteen Soomaali fara badan dabcan ganacsi marka la yiraahdo oo kale iskuulo private ah soo galaya iyo daagisyo private ah oo dadka Soomaaliyeed ka hirgeliyeen magaalada Yaafle dabcan iskuulada iyo daagisyadaasna waa qayb ayaga laftoodu waxa u galaan ganacsiga wana qayb faa'iido u ah degmadii iyo wadankii iyo jaaliyadii Soomaaliyeedba isku xidhayso faa'iidana u leh marka waa lagu guuleystay barnaamijka isaga ah ما شاء الله برنامجكينا سي غدغلينا waxaa kaloo ku weydiin lahay xagga maadaama cudur bandamiin uu jiro oo adduunka oo dhan saameeyay gaar ahaan Yurub saameeyay markii koowaad soo ku bilowday iyo hadda mar labaad oo leeyahay uu soo rogaal celiyay bal arinkaas iga waran dabcan xanuunku waa xanuun aafo adeer la sitay oo xanuunkan waxay ma yiraahdaan raaciisi labaad bay nahay laakiin waxaan qabaa raaciisi koobaad ba ka mushkilad badnaa dadkuna wax ku cusub u ahaa walow dawladuhu sida uga hadlayeen iyo sida saxaafaddu uga hadlaysay ay warbixino fara badan oo naxdin leh ay waqtiga ay taagneed sida bishii labaad ama bishii saddexaad ama tii afraad ama tii shanaad oo kale waxay hayd wax ka kacay ah laakiin ظروف كست أول صوم مري دي مش بدن وايد دعدي ضد بدن الصوماليات أو نتشعلين ويكبحين فهمية الصوماليات خاصة المجال عند الجنة هاي ما أنتنا الرجال علستي سلبات بالوجرة الرجال علستي سلبات لبح على بو يوجد دون تيهره أو تيهره أو كلام مركي أي بلا ميسي وإحنا حسوستا مركي كوباد واحد يدي تكان هذا قفلوا بجوريا صار دقوا واحد عني له مرة قاركود waxa laga hadlayay in la kala waayo wax la cuno in laga soo waayo dukaanada marka qaarkood waxa laga hadlayay in laga waayo beebarka musqusha la dhigto in laga waayo dukaanada marka waxa jiray xaalad kacsan oo qof walba uu shakhsiyadiisa iyo naftiisa uu didsanayo islaasiyad u noolaan doonta ma noolaan kartaa laakiin maanta waxaad moodaa walow ay rajo fiican ay jirto talaala ay soo baxeen dadkina ay la qabatimeen distance social distance waxa la yiraahdo cusub la sameeyay hadeer localkan aynu fadhino waa localka ugu weyn ee ururada Soomaaliyeed ee ku yaala magaalada Yaafle waxaana mas'uul ka ah ururka Soomaaliska Foreerin Yaafle markaste oo iclaamku uu soo kordho oo dawladda ay soo kordhiso in la kala fogaado iyo sharciyo cusub ay soo saarto qasab sharciyadaas inaan ugu dabaqan aynu ku dhaqmaynaa maanta oo tahay 23 bisha November
wixii ka dambeeya way xidhnaan doonaa lokaalka laftiisu xitaa muddo bil ah oo ku beegan ilaa 24 December maadaama ay dawladdu tiri muddo hal bil ah 4 isbuuc hala sameeyo in waxyaabo fara badan oo activity-yadu ay ku socdeen in la joojiyo marka qasab waxaan rajaynaynaa inaynu ilaahay sidii kii horeba inooga badbaadiyo ka dambana inooga badbaadiyo وانا اسكا دمان دونايو waa imtixaanada adduunyada soo maraya ee lagu imtixaamayo bil aadmiga bayna ka mid tahay laakiin waxaan rajaynaynaa inagoo wada caafimaad qabna inuu sanadka 20 oo waaye far badan lahaa uu inoo dhamaan doono waa maasantaa maxamed xagga jaaliyada u gudbo maadaama jaaliyada hadda ardawday oo Soomaaliska training iyo waxay qabato saan ognahay yaablo waxa ka jirto 10 ilaa 20 jaaliyadood تكلية إيش قيسو ضدك رليت الصومالية عاوسة إنها تاع صومالي سكرينين ضدك دم وسكراعين مركا بلا بيسين عقبته دين هور استاجي واحد دين قبصامي واحد هيك سنيسين بسم الله واحد كستو عصبي كبقش وليه واحد كستو لوجو جولستانه كفانس بوليه تاو حن كودا وررده مركي لبلا بايي وررده marka qaar doori 40 bal sheegi jiray ka cabsi iyo kala shiki Soomaalidu ay kala shikiday baa looga cararayay laakiin dadka Soomaaliyeed hadii ay tashadaan oo ay ku tashadaan inay wax wada qabsadaan isna aaminaan guul waa gaari karaan ururka Soomaaliska Foreign Yafle wuxuu kaga guuleystay ururadii kale ee ama mar lagu wada dhawaaqay ama ka da'da weynaaba inay tahay dadka hoggaanka ahaa oo sameeyay dhabar adeeg fara badan iyo isku tanaasul fara badan oo dhexdooda ah iyo isku tanaasul fara badan oo la tacaamulka bulshada hadii aad hoggaan u tahay oo aan tanaasul fara badan sameeynin qasab waxa imanaysa marka iska hor imaad iyo in qarsacac iyo wixii Soomaalinimada aynu ku naqaanay la isla wada aado waxaasna natiijada ka dhalato inuu isla naqaanayo waa zero marka waxaan heshiis lagu wada ahaa under zero-ga inaan la wada tagin hal inta la haysto halka la taagnaado qofkii labo ka dhigi kara ee xisaabta kordhin karaana uu soo dhawaado aan laga lahayn cidnaba inta badan ururada kale waxa jirta dad abaabula dadka abaabula dhisay bay ku kooban tahay haduu dumana ayaga ka dumay haduu dhismana ayagu u dhisan yahay ururkan maanta aniga gudoomiyaha ah walow aan markii la soo bilaabay asaaskii aan joogay laba gudoomiye iga horeeyay aniga gudoomiye saddexaad baan ahay qasab tarmiin laba sano aan soo hogaamiyay ودمان دونا هجان كيكونا هجان كلا إيمان دونا لكن الشرط جواها وياهي ذات كدجن مجال يافله عدي أقول إن وحلا وذا قبصده إن يسود واتو كل الشرعيات جرا إنه قفكم بدلام كقيب قاطو أو قارن بحياش كمين نقضه إنه هدي وقان كنا مدتك المال لو عاوية ماشي أكتيفيتيد وحلا يرادو المها دوكسي أفراد إلا دوكسي كسجالات هذا الحسد ما دتك في عنتها مالين كالي هل ساعة ما لبس ساعة لوجو بيكم لوكالك عاوي طبعا هذا عاوين كرديد شن هذا عاوين كرديد ليه هذا عاوين كرديد وفائده واحد شراه هو يوين فربضن أو وطن كي واحد كصابرتين لكن اللي الوقت يسولش كان أقولن برتن به مدن هو يوين ككلا عاوية بيهال بس أسوق اللي شرا وطن كي واحد كصابرتين لكن الوقت يسولش كان واحد كبر مركا المهم هدي اللوجو طلع جرا واحد باسط في إن السمايو ولا سمين كرا وأنا لوجو ذا قولي سنكرا مركا مهم دو واحد يتهاي mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba midnimada ayaa wax lagu noqon karaa ما شاء الله هذا وما سنتها محمد هذا كلمة علنا ما دام وقتي قاعد أنا سيسي أنا sidoo kale aad baan kugu mahad celinayaa maadaama tahay wiil dhalinyaro dadaal fara badan wada waxaan ku leeyahay hore u soco